تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. waxaa laga rabaa inaad ka baqdo Rabbi subhanahu wa ta'ala haddaad makhaayadaada joogto ama aad dukaankaaga joogto waxaa laga rabaa inaad Rabbi ka baqdo meel kastoo joogto haddaad baar joogto sidoo kale waxaa laga rabaa inaad Ilaahay ka baqdo subhanahu wa ta'ala oo waxa aad samaynayso iyo qowlka aad sheegayso hadalka aad ku hadlayso aad ogaato in laga qorayo haddii laga qorayana berri lagu soo hordhigay berri ba naftu ka baxday ama saadamay waa wax yar adduunyadu waa waqti yar oo kooban waa trans kulligeed adduunyada waxaynu ku nahay trans waa meel laga tagayo meel lagu nagaanayo ma waa meel markii aad sidaa uga tagto aad shalaynayso waxaad Rabbi subhanahu wa ta'ala aad u hormarsatay ama aad ku farxayso oo noloshaadu ay ku farxad gelinayso ama aad ku naxayso oo oranayso Rabbi iceli baad oranaysaa laanahu maxaa yeelay waxba ma aadan shaqaysan adduunyada intaad joogtay baa waxaad ku mashquulsanay inaad qaad cunto adduunyada intaad joogtay baa waxaad ku mashquulsanay inaad khamri cabto adduunyada intaad joogto baa waxaad ku mashquulsanay inaad waalidka caasi ku noqoto adduunyada intaad joogto baa waxaad ku mashquulsanay inaad dadka dhibto maxay ku qabanaysaa haddaad maanta isu haysato nin dhalinyaro ah oo xoog leh oo wax walbaba Ilaahay siiyay kaba soo qaadina lacag haysato kaba soo qaad maal fara badan inuu Alle ku siiyay ama aabaha iyo hooyadaaba kaaga dhinteen ka soo qaad in 3 laan garusal ama 4 laan garusal aad isu kala badbadasho haddii aad caado ka dhigato 24 saac inaad hadba laan garusal inta la soo baxdo aad iscajabiso soo berri lagu qaban maayo maxaad Rabbi la hortagaysaa ma isweydiis haddii aad dabeecad ka dhigato 24 saac gabadhay ka qurux badan tahay inaad uga faa'iideysato inaad lacag haysato oo si uga faa'iideysanaysaa waxaad uga faa'iideysanaysaa adiga lacag baa laga dhigtay maba aad shaqaysan ama waad shaqaysatay oo waad heshay waad kibirtay lacagta waxaad isu qaadatay inaad adigu heshay oo aad adigu milkiday war lacagta Rabbi baa ku siiyay subhanahu wa ta'ala waliba wuxuu kugu daray waxa laga yaabaa xaasas awlaad fiican inuu kugu daro waxa laga yaabaa inuu caafimaad kugu daro muxuu ku siiyay Rabbi caafimaad iyo lacagtii iyo wax walba iyo caruur qofka bini aadamka adduunyada waad aragteen wuxuu ku jecel yahay waa caruur iyo maal inuu haysto hanti waayo haddaad maalin kasta socoto oo tumasto maalin filan ka qaday maalin saayeel maalin sidaayeel war berri ka maalin waa lagu qabanayaa berri ka maalin haddii lagu qabto oo aad Rabbi hor tagto khalaas kitaabkaagii waa ku hormaray maxaad Rabbi la hortagaysaa maxay ku taraysaa lacagtii aad adduunyada haysatay iyo maalkii kasabkii faraha badnaa aad haysatay oo aadan wax ka sadaqadaysan oo aadan masaajid wax kaga samaysan oo aadan meel kale wax masaakiinta wax laga yaabaa inaad orange day yaanba la isoo dayba ma barraba inaan arko kuwaas ya adigana miskiinka Rabbi baa kugu eegaya jeebkaaga wixii ku jira adiga lacagta waa lagu siiyay laakiin Rabbi wuxuu eegayaa bal inaad ninka miskiinka u naxariisato haddaad miskiinka u naxariisato Rabbina waa ku naxariisanaya subhanahu wa ta'ala laakiin haddaad miskiinka kabaha kula tumato maalin maalmaha kamida waxaad maqlaysaa hebel doon baa ka degtay hebel markab baa degay hebel bahalkii baa degay wax kale ma aha waa macaasi iyo durub ay galeen iyo qof lagu imtixaamay waa jira qof mu'mina ee wax walba ka degay adduunyada laakiin waa imtixaan sagana waa lagu imtixaamay bal inuu ku sabro iyo inuu ku sabri waayo kan kalena waaba imtixaan ba sababta ku tahay Ilaahay buu ku caasiyay maxay ku taraysaa haddii berri lacagtii noocaas ahayd hantida ahayd aad haysatay mar allaale iyo markaad ka dhimataba qabriga markaas sida u gashaba haddii naar lagaaga furay kadibna banka yawmal qiyaamah lagu soo taajinayo adigoo garbaha laga wado oo jahannaba lagu sii wado waciyaadu billah maxay lacagtaada ku tartay maxay hantidaada ku tartay maxay dhalinyaranimadaadii aad adduunka ku soo isticmaashay maxay ku tartay waxba kuma tarin rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ni'matani maqbulun fihima kathirun min an-nas as-sihhatu wal-firaq
واللبن نمعو وحير اللبن نمعو أي مضيين إلهي سبحانه وتعالى وقول نمعيه محسوستان بير محسوستان ويكون دقيق أد بيكون دقيق محسوسنا يا وصحة يو الفراق إن عافماد نقصيه بل أرادوا سبحانه الله تك إلهنا قدري ما أنك سوى حدا كيسا كي أتصاحب بضع هايين وشلح حنجدة كلا جوسني سين وميل وده فردين والله جاي أما قعاني كقضي أما الله بدك عمود إيكوين أما الله بدك لقوط إيكوين أما أصبح نفسك ليه أما أصبح كومك كجرا وصاحبك يا إلهي أديك هو كل شيء لكن وح الله قري وصاحبك إنه صدق نقض ما أنت وح نيتك عشان لا تمنن لها ما أنت هدوه هلايو إن عافمات الله سيو هدي عافمات للصيانة ولقي مساجد كمان بحال لأنهم حيانا مو أركي ولا النبي وحو أركي معاني دي أي عافمات كلها هاي أيو أركي كد مركو سول النبي والله قبط هل كاسو كجرا مع عبادة سنكرو وحبا ما سمن سكرو قاربا سحرة يكادد وإلين عيدا كسعدا إلهي وحنا كبرينا ددكاس إن إلهي سبحانه وتعالى يجنا وسخرو لكن ولا ليال وقاعد نمعداس ورسولك الشيخ صلى الله عليه وسلم وصحة إيو عافماتك إيو دلنيرانيمدا دلنيرانيم بالبسي شباب إن قف دلنيرا أتاهي ومانتي عبادة سميسن كرا وإلهي كو حمدن كرا ونمعدا وألسي كفائدة سنكرا لكن بري ما هي صوحة صودا وكاد مات شري وادو عاسدي بالله ورنا يا خلاص ربي وحا لو ارتقيسا ربي ما وحا لو ارتقيسا وان قيل يا ربي ما وحا لو ارتقيسا ميل فلان با فديو 24 ساعه فيسبوك با كجري مياد ربي قال له ارتقيسا و 24 ساعه دد بان داوني halkaas halkii aad masaajida ka tagi lahayd dhalinyaradu waxa jira qofku inuu kitaabka soo qaato dadkii hore waad aragtay kitaab inaad soo qaado oo kala bixiso oo dakhrisato ajarkaad ka helayso weyn wada ogna ajar baad ka helaysaa fara badan halkii xaraf baa waxa lagaaga qorayaa 10 ajar haddaad hal suurad akhrido dee waaba liibaantayba kow kitaabada hadda waxa laga jeclaado booska kitaabada inuu bedelay booska jaraa'idada iyo joornaalada